khalaf maxamed xasan waxaa loo xusuusan yahay maamaha tiraahda gobonnimo dhaga adayg bay gaga haray. ninkaasi jilibkuu ahaa ayaa waxaa ka taagroonaaday jilib kale oo ay abtirsiino iyo darisba wadaageen. khalaf maxamed iyo raggii uu u ololayn jiray ayaa kolkii dibindaabyo kasta lagu dayey markii dambe la damcay in lagu dirqiyo inay dhulkaasba ka guuraan oo ay ceel iyo cashinba uga kacaan jilibkaa kale ee u xoogga sheegtay. nimankii xoogga isbiday 3 fariimood bay u direen khalaf maxamed. fariimahaas oo mid walba dulucdeedu ahayd inay degdeg uga guuraan ruumankii ay deganaayeen weligoodna deganaan jireen. khalaf iyo raggiisii way la noqon weyday wax kastaba ha muteene inay caynka hoosta ka geliyaan oo ay ka guuraan dhulkii ay ku dhaqdeen ee ay degiddiisa u barteen. fariintii saddexaad kolkii ay u timid wuxuu khalaf maxamed jilibkii cadaadinayay ugu warceliyey gobonnimo dhaga adayg bay gaga haray oo macnaheedu yahay raganimo iyo gobonnimo maanta waxaan ka hayaa waa maya. xoog ma hayo aan isaga kiin celiyo sidaasoo ay tahayna waxaan ku mintidayaa ereyga maya oo aydanaan ii diidi karin. gobonnimo dhaga adayg bay gaga haray waxay noqotay mahmaah uu ku mahmaahi karo ruux kasta oo la damco wax aan dowgiisa ahayn ama aan u cuntamin tunjileecsi awgiis in la yeelsiiyo dabadeedna irkuna ha ku soo dume go'aansada waxa isaga la toosan inuusan cabsi awgeed uga xubsiiban.